waa habeen kale oo runtii aad u qurux badan waxaan leeyahay gudoomiyaha Hambalyo runtii baarlamaanka Soomaaliyeed ee hadda fadhiya runtii waa baarlamaan aad u qiimo badan oo shaqo aad u badan oo aad u adag soo qabtay muddadii 4 sano ahayd ay soo shaqeynayeen wax walbaba oo wanaagsan waa baarlamaankii koowaad buu noqonayaa wax kasta baarlamaankii ugu sharci marinta badnaa baarlamaankii ugu khilaafka yaraa baarlamaankii wax walba wixii fiicnaa baarlamaankii koowaad buu qaadanayaa baarlamaankan waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo caawa halkan jooga gudoomiyihii hore gudoomiye Sheekh Aadan oo oday Soomaaliyeed oo aan leenahay waad mahadsan tahay gudoomiye meel fiican baad keentay marka waxaan hubaa qodob kale aan dhaafay oo baarlamaanka ka dhaafay oo marka Cabdiqaadir ka hadlaayay way istaagtay waan ka dabageynay baarlamaanku aad buu u socon doonaa uu kacayaa marka suunka xirta qof walba suunka xiro si xoog loo dhaqaaqayaa marka gudoomiye baarlamaanka shaqo badan buu soo qabtay waxaan isleeyahay shaqooyinkii looga baahnaa 90% uu soo qabtay 10% laakiin sida ay gudoomiyuhu sheegtay aan sahlanayn ayaa dhiman iyo taladii guud ee dalka oo runtii ay marxaladii si dhamaanayso marxalad cusubna la gelayo marka meel fiican iyo xilli adag oo haddana wanaagsan ayaad ku soo aaday marka aad baad u mahadsantihiin waana idin mahadcelinayaa dhammaantiin gudoomiyaha si gaar ah waxaan uga mahadcelinayaa cashadan qiimaha badan ee baarlamaanka uu sameeyay golaha shacabka iyo aqalka sare annagana uu nagu marti qaaday waad ku mahadsantahay gudoomiye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.